Al-Shabaab oo weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday degmada Awdheegle ayaan warbixintan ku eegayaa balse daawade haddii aad soo booqatay boggeena hoggaanka wararka waxaan kaa codsanayaa inaad na soo follow gareyso sidoo kaleetana muuqaalkan aad like gareyso kaba sii wanaagsan haddii aad u share gareyso saaxiib adigoo kale waad ku mahadsan tahay la socodkaada. warar kala duwan ayaa ka soo baxaya weerar culus oo ay saaka xubnaha kooxda Al-Shabaab ku qaadeen gudaha degmada Awdheegle ee gobolka Shabeellada Hoose. weerarka ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ku bilowday qaraxyo waxaana kadib xigay dagaal toos ah oo ilaa hadda ka socda sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka. labada dhinac ayaa isku adeegsanaya hubka noocyadiisa kala duwan waxaana sidoo kale jira khasaare dhimasho iyo dhaawac leh. ila wareedi lagu kalsoon yahay ayaa inoo sheegay in qaraxa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyay walxaha qarxa kaasoo lagu dhuftay bar control oo laga soo galo degmada waxaana kadib xigay iska hor imaad toos ah. sidoo kale mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka degmada oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in weerarka la fashiliyay isla markaana laga hortagay in xubnaha Al-Shabaab ay gudaha u soo galaan degmada Awdheegle. waxay sidoo kale intaas ku dareen in weli dagaalka uu socdo isla markaana ay howlgal ka hortag ah wadaan ciidamada dowladda ee ku sugan halkaasi. macadda khasaaraha rasmiga ee ka dhashay weerarkan waxaana haatan xaaladdu ay tahay mid aad u kacsan iyadoo weli dhaqdhaqaaqyo culus uu ka socdo degmada Awdheegle. Awdheegle ayaa marar badan waxaa weeraro ku soo qaaday Al-Shabaab sidoo kale waxay horay ugu garaacday hobiyaal geystay khasaare isugu jiro dhimasho iyo dhaawac. maalmihii u dambeeyay kooxda Al-Shabaab ayaa kordhisay weerarada ay ku qaado saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ee haatan howlgallada ka wada inta badan gobolada dalka.